السلام عليكم صاحبي وويلكيني بكيري فيلمز maanta waxaan rabnaa inaan bilowno taxanaha anemiga ah ee Attack on Titan taxanahan oo ah taxane xiiso badan leh oo aad ka heli doontaan aad ni cajabin doona laakiin saaxiibayaal dib ayaa jira taxanaha aad ayuu u badan yahay waana 4 season marka waxaa la rabaa inay idhiiri gelisiin oo muuqaalka like iyo subscribe saartaan si aan u dhameeyno taxanaha si degdeg ah anna waxaan ii balan qaadi doonaa inaan dhameyn doono taxanaha haddana waxaa bilaabaynaa khulasada taxanaheena in ka badan 100 qarni bini'aadamku waxay ku noolaayeen meel ay ku wareegsan yihiin 3 derbi oo 50 mitir ah derbiga Maria derbiga Rose iyo derbiga Sina kuwaas oo ka ilaalinaya Titaniska makhluuqaad bini'aadamka weeg oo dadka cuna Eren Yeager oo degan Shigaashina wuxuu rabaa inuu arko dunida dibadda isagoo raba inuu ku biiro ciidamada sahminta maadaama uu noloshiisa u arko sidii xoolo ku xariisan xero inkastoo ay saas tahay saaxiibtiis Mikasa iyo hooyadiis Carla way ka soo horjeedsadaan kadib markay arkeen khasaaraha soo gaara ciidanka sahminta Eren hamigiisu wuxuu soo jiitay Abis Grisha kaas oo u balan qaaday inuu tusi doono waxa ku qarsoon qolka hoose marka uu soo laabto daawadayaal qolkaas waxa ku jira sirta ugu weyn ee taxanahan waxaana dhihi karnaa waa furaha taxanahan iyo su'aalo badan jawaabahooda aan u soo laabano khulaasadeena kadib markii Eren iyo Mikasa ay Armin ka badbaadiyeen ciyaal foodistayaal ah waxaa dhacaysa dhibaato aad u weyn markii Tito weyn oo 6 mitir ah uu si lama filaan ah u soo muuqdo oo uu dudumiyo iridda Shiganshina Eren iyo Mikasa waxay ku ordeen gurigooda waxayna arkeen Eren hooyadiis oo ku hoos dhismaha dudumay Titan dholo cadeynaya ayaa u soo dhawaanaya Carla waxay ka baradaa inay cararaan oo naftooda la baxsadaan askariga Hans ayaa isku dayay inuu difaaco laakiin cabsidiisa ayaa ka adkaatay wuxuuna la baxsaday Eren iyo Mikasa Erenna wuxuu si naxdin leh u daawanayaa Titaniska oo cunaya hooyadiis Hans wuxuu ka raali geliyay Eren badbaadin la'aanta hooyadiis isagoo qirtay inuu cabsaday dadkii Shiganshina waxay u carareen gudaha derbiga Maria laakiin Titanka gaashaanka ayaa jabiyay derbigii gudaha taas oo ku qasabtay dadka inay u qaxaan derbiga Rose Eren wuxuu arkaa riyo yaab leh oo aabihii uu si qasab ah cirbad ugu mudayo wuxuuna siinayaa fure sanad kadib dhacdadaas cuntada oo yaraatay awgeed 250,000 oo qaxooti ah ayaa loo diray inay dib u qabsadaan derbiga Maria laakiin Titaniska ayaa xasuuqay waxaana ku jiray Armin awowgiis Erenna wuxuu balan qaaday inuu ka aarsan doono Titaniska waxayna ku biiriyaan ciidanka isaga iyo Mikasa iyo Armin tababarkeed ayaa baaraya askarta cusub wuxuuna ciqaabay Sasha oo bardho cunaysa Eren iyo Jean waxa dhex maray xifaalsan askartuna waxay ku tababaranayaan qalabka ODM geerku waa qalab ku sahlay inaad ku duushid kaasoo ku sahlay inaad Titaniska si fudud uga adkaatid Eren wuxuu ku dhibtooday dheelitirka qalabkan laakiin waxaa la ogaaday in qalabkiisu xumaa markii loo bedelay uu ku guuleystay 5 sano kadib weerarkii Titaniska Eren iyo Mikasa waxay ka mid noqdeen 10 arday ee ugu sareeya inkastoo Eren uu geli karay ilaalada boqorka Eren wuxuu doortay in ciidanka Titaniska dila uu ku biiro si uu la dagaalamo Titaniska uu nagu soo argudo hooyadiis Eren iyo saaxiibadiis waxa loo qoondeeyay degmada Forest halkaas oo Titanis weyn uu mar kale ka soo muuqday wuxuuna jabiyay iridii Titanka weyn wuxuu jabiyay albaabkii Titankii yaryara ayaa soo galay magaalada Mikasa waxay caawisaa qaxootiga halka Eren iyo kooxiisa ay safka hore galeen askartii qayb ka mid ayaa si arxan daran loo cunay Eren lugta ayaa laga gooyay Eren isagoo dhaawacayo haddana wuxuu ka badbaadinayaa Armin Titanka garka leh Eren ayaa Armin afka Titanka ka soo saaray laakiin Titanka ayaa Eren liqay isagoo gacanta ka gooyay halkaas ayuu maanta noogu joogayaa taxanaheena daawadayaal qaybta kale ayaa waxa ku ogaanaynaa in Eren uu dhintay iyo in kale sidoo kale siraha taxanaha qayb ka mid ayaa ku ogaanaynaa muuqaalkeen xiga halkan haddaad soo gaartay subscribe noo soo dhig muuqaalkana like noo saar si dad badan u gaaro mahadsanidin